markay halkaa marayso ayaa waxaa saaka Beylulida looga taliyo golaha wakiilada isku urursaday dhammaan inta badan mudanayaashii wambarka kula itaalay Cabdirasaaq Khaliif Axmed kuwaasi oo dhammaan 45 xildhibaan. Mudanayaashan ayaa qabtay shir jaraa'id oo jooga una eka qarbe waxayna dhayda ka cadeeyeen iyagoo taagtaagan in shirgudoonka golaha wakiiladu ka dhex wado golaha qas iyo qaasawa salal. waxay sheegeen inuu wado laba wajiileyn iska horkeen iyo taladii oo uu la afluubyaleeyay lana gawaaraacay. xildhibaanadan ayaa waxaa ugu bowdheeraa raggii ugu mayalka adkaa ee laga soo tigsiin waayay inay isu xulibaan dhanka xukuumadda. Khadar Guun, Maxamed Xuseen Meydhane, Mustafa Khayreeye iyo Xasan Cali Casoowe ayaa halkaa kaga tiraabay in urradii Somaliland yihiin oodka qaad. waxay sheegeen in beelaha daraafyada oo ka qaatan xisbiyada saddexda ee Somaliland oo dhammaantood la weliyo beesha dhexe aan yeeli doonin oo ay taasiba u tahay kasha dahabiya. mudanayaal goobta joogay ayaa gacanta isula tegay iyadoo taasina soo waldaamisay in ciidamada